Komando temel eğitimlerinde Türkiye'de bitirilen 7. Somali Piyade Taburu'nu karşılama töreninde burada toplanmış bulunuyoruz. Bu taburun benim için önemli bir yeri var. Çünkü bu tabur benim göreve başladığımda ilk alıp Isparta'ya gönderdiğim tabur. Şu anda gönderdiğimle Kışla'dan girdikleri gözle şu anda geldikleri arasında çok büyük bir fark görüyorum ve bu farkı görmekten de çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben 7. Somali Piyade Taburu'nun Somali Silahlı Kuvvetleri'ne çok büyük katkılar sağlayacağına güvenlik kapsamında inanıyorum ve kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Tahlil Bihi ve Milli Savunma Bakanı Hasan Hüseyin Hacı'nın konuşmaları. hadal soo jeedinta taliyaha ciidanka dhulka sareeya guuto Muhammed Tahlil Bihi iyo wasiirka gaashaandhigga Hasan Hussein Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve tenâulillah ve salatu ve selamu ala aşrafil mursalin. Marka ugu horeysa waxaan salaamahayaa wasiirka gaashaandhigga taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka taliyaha dugsiga Turkisom taliyaha dugsiga qaybta Soomaalida saraakiisha labada dhinac ee dhammaan halkan joogta bacda saxaafadda ciidankan noo yimid maanta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahadceliyo dowladda Turkiga gaar ahaan qaybta ciidanka ee loo soo tababartay ciidamadan. waxaa idinkugu filan ammaan iyo bogaadin in qof walba oo Soomaali ah ama qof walba adduunka wuxuu ku daydaa role model u ah ama dawlad ama shakhsi ummadda Soomaaliyeed dawladda ay higsanayso ay rabto inay sideedoo kala noqoto ku dayato xagga horumarka ciidanka iyo guud ahaan horumarka bulshada waa dawladda Turkiga. dawladda aan rabno inaannu waddada ay qaadno si aannu horumar u gaarno si ciidankayagu uu u noqdo ciidanka geeska Afrika ciidan Soomaaliyeed oo xuduudiisa ama xuduudaha waddanku uu leeyahay bad iyo cir iyo dhul bahanta ku dayashadayadu waa ciidanka Turkiga. intaasaa ammaan idinkugu filan. mar labaad iyo mar saddexaad baan idin bogaadinaynaa idinna ammaanaynaa. aad baan u mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan hal kelmad idhaahdo ciidanka cusub ee soo biiray ee nugu yimid waad arkaysaan sida laydiin soo dhoweeyey waxay ka turjumaysaa sidii markii hore laydinku qoray oo aad ciidanka ugu soo biirteen. ciidankan gorgor waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeedna u sheego waa ciidan qaran. waxay ku noqdeen markii hore oo la qorahayay waxaa loo qoray si qarannimo ah. waxaa loo qaybiyey deegaamada Soomaaliya ay ka kooban tahay. waxaa lagu qoray saf dherarkooda cabirkooda caafimaadkooda saf baa lagu qoray sidii loo qori jiray barigii lixdamaadkii toddobaatameeyadii ilaa siddeetameeyadii sidii loo qori jiray ciidamadii Soomaaliya ayaan u qorray. kadibna waxay soo qaateen tababar aad arkaysaan muuqaalkooda iyo habdhiskoodu inuu ka turjumayo tababarkii ay soo qaateen. qaabkaasaannu idiin soo dhowaynay. waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed ciidamada gorgor waa ciidan aad isku hallayn kartaan. waa ciidan shacabka Soomaaliyeed ku hurdi karo. waa ciidan garanahaya xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin in la dhowro midka jiran in la dhowro hooyada waayeelka ah in gabadha la dhowro in odayga la dhowro in ganacsiga la dhowro in cadowga la iska ilaaliyo oo cadowga dharbaaxa kulul lagu dhufto. ciidan u tababaran weeye. ku dheeraan maayo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Milli
Savunma Bakanı Hasan Hüseyin Hacı'nın konuşmaları. هذا سوجان انت وزير كاشانيكا حسن حسين حاجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم taliyaha ciidamada dhulka taliya ku-xigeenka taliyaasha kala duwan dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya iyo ciidanka maanta halkan aan ku soo dhaweynayno ee saxaafada guud ahaan salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka ugu horeyso waxaan soo dhaweynayaa ciidamada gorgor oo maanta ku soo dogay boodka Muqdisho kuwaas oo ku soo tababartay dalka Turkiga tababar dheerna la soo siiyay sidii dalkooda diintooda u difaaci lahaayeen shacabkoodana ka difaaci lahaayeen cadow kasta waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dowladda Turkiga oo mar kastaba nala garab taagan inay dhisto ciidamadeena xoogga dalka khaas ahaan ciidamada gorgor ciidamadaas oo maanta lagu dayin karo dalkeena Soomaaliyeed tababar khaasna soo qaatay waxaan leeyahay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda iyo madaxdeedaba waa mahadsantihiin waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkaas anoo maanta ka mas'uul ah oo afkooda ku hadlayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay dowladda Turkiga waa mahadsan tahay dalkeena dib u dhis buu ku jiraa waxa ugu muhiimsan oo la dhisana waa ciidan la'aan dowlad mihir gasho waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed haddaan nahay inaan dhisno ciidan ilaaliyo dhulka badda iyo cirka cadowga ka ilaaliyo isla markaasna ilaaliyo muwaadiniinta Soomaaliya xuquuqdooda waajibaadkooda say u gudan lahaayeen iyo cadow kasta oo ku soo xadgudba say uga ilaalin lahaayeen maalka iyo nafta muwaadiniinta ciidamada ilaalin lahayd baan dhisahaynaa waa sidii taliyaha u sheegay ciidamadan waa ciidamo qaran waa ciidamo isku dhafan waa ciidamo laga ilaaliyay xasaasiyaad kasta laga ilaaliyay loo carbeeyay inay cadowga la dagaalamaan dalkana ilaaliyaan ku shaqeeyaan nidaamii kala dambeyn iyo dastuur iyo sharci inay ku shaqeeyaan marka aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta ciidamadan inay si nabad leh ku soo laabtaan oo dalkooda ay joogaan insha Allah waxaan rajaynaynaa kuwa kale inaan bixino ciidamadeena xoogga dalkana inaan dhisno waxaan waxa ku nahay dalkeena waxaan waxa ku nahay ciidamadeena waxaan waxa ku nahay dhaqaalaheena waxaan waxa ku nahay meeshaan ka deganahay adduunyada oo geesta Afrika waxaan leeyahay Soomaali meel kasta joogtaba gacanta inay isqabsato ciidamadeeda dhisato nabadgelyada ka shaqaysto horumarkeeda ka shaqayso insha Allah waa guuleysanaynaa walaalaheena Turkiga waxaan leenahay mahadsantihiin insha Allah intaan joogno waxaan rajaynaynaa in ciidan qaran dhisno dalkeenana hadda aad u degan yahay deganaashada siyaasadeed inaan ka faa'iideysano horumarka dalka ka shaqeyno waana salaamintiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh